dhammaantiin waa idin salaamo daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij xiiso leh oo ku saabsan xayawaanaadka ugu xawaaraha dheereeya dunida. waxaan kusoo qaadan doonaa 10 xayawaan. barnaamijkan sawiradooda ayaadna ku dhex heli doontaan muuqaalka. 10 xayawaan ee ugu dheereeya dunida. haddii aan ka bilowno xayawaanka koowaad, horta waxaa ugu xawaaro dheer xayawaanaadka dunida ku nool kuwa haada. waxaa kaalinta labaad soo gelaya kuwa ku jira badda, halka kaalinta saddexaad ay soo fariisan doonaan xayawaanaadka ku nool beriga. marka waxaa kaalinta koowaad gelaya xayawaan ka mid ah xayawaanada haada, magaciisana waxaa la yiraahdaa xayawaanka koowaad waa peregrine falcon. peregrine falcon maxaad ka taqaanaa daawada? waa xayawaanka dunida oo idil ugu xawaaraha dheereeya. peregrine falcon waa shimbir ka mid ah shimbiraha ugu dheereeya dunida. kaalinta koowaad ayayna ka haysataa xagga shimbiraha iyo dhammaan dunida. marka ay ugaarsanayso waxa ay jari kartaa xawaaro dhan 322 kilomitir saacaddii ayay jari kartaa. shimbirtan peregrine falcon la yiraahdo waxa ayna gaari kartaa 90 kilomitir saacaddii haddii aysan ugaarsanayn oo ay caadi isaga haadayso. sidoo kale xayawaankan loo yaqaano peregrine falcon macluumaadka ugu xiisaha badan iyo meelaha laga helo ee uu ku nool yahay waxaa ka mid ah qaaradda Australia iyo Koonfur America. shimbiraha waxay ka mid tahay nooca loo yaqaano falcina family, waana xayawaan da ahaan gaara 7 ilaa 15 sano. cabirkiisuna waa 40 ilaa 46 gram. culays xagga size-kiisa waa sentimitir aan dhahay 40 ilaa 46 sentimitir, halka culayskiisa uu gaarayo 330 ilaa 1000 gram ayuu gaarayaa. waa gram. culayska midka labka ah waxa uu gaarayaa 300 ilaa 1000 gram, halka midka dhadiga ahna uu gaarayo ilaa 700 iyo 1500 oo gram, taasoo muujinaysa in xayawaankan la yiraahdo peregrine falcon uu culus yahay midka dhadiga ah. qaaradaha uu ku nool yahayna waa qaaradaha uu ku nool yahay xayawaankan loo yaqaano peregrine falcon waa Yurub, Aasiya iyo North America iyo South America. si lamida waxaa laga helaa qaaradda Australia. qaaradda Afrikana waa uu ku yar yahay, waxa uuna ka tirsan yahay Falco peregrinus family-ga la isku yiraahdo daawadayaal. waana xayawaan ka mid ah xayawaanada dunida ugu xawaaraha dheer. xayawaanka labaad ee ugu dheereeya dunida oo idil weli waa mid ka mid ah shimbiraha, waayo shimbiruhu waa ay haadaan oo lama mid ahan xayawaanaadka afarta adin ku socda ama labada. sidaa daraaddeed kaalinta labaad waxaa soo gelaya isla shimbir kale oo loo yaqaano white-throat needle-tail ama sayn mudac dhuun cadde. xayawaankan waa xayawaan ka mid ah shimbiraha dhuun cadde dib mudac ayaa la yiraahdaa. waana xayawaan dhanka dhuunta ka cad, sayntana u dhuuban, waxaana loo yaqaanaa spine-tailed swift. waana xayawaanka kaalinta labaad ugu jira dhammaan kuwa ugu xawaaraha dheer dunida iyo weliba shimbirahaba. waxa uuna ku dagaalamaa awood. waxa uu xawaarihiisu gaaraa 171 kilomitir per hour saacaddii. wuxuu jari karaa 171 kilomitir ama 106 mayl ayuu jari karaa saacaddii. waana xayawaan si awood leh ku dagaalama. kaalinta labaad ayuuna ka soo galay xayawaanada ugu dheereeya dunida, waana dhuun cadde dib mudac. kaalinta saddexaad waxaa soo gelaya isla shimbir. saddexdii kaalin oo ugu horreysay waxaa qaatay shimbiraha ama kuwa haada. waxa uuna markaan noqonaya xayawaanka kaalinta saddexaad soo gelaya ee ugu xawaaraha badan dunida oo idil iyo shimbirahaba frigate bird. shimbirta la yiraahdo frigate bird ama dibhankool ayaa loo yaqaanaa daawada af Soomaali ahaan, waana eray bixin aan anigu u sameeyay. dibhankool ayaa la yiraahdaa shimbirkan frigate bird. xawaarihiisu waxa uu gaarayaa 153 kilomitir saacaddii ayuu ordi karaa ama 95 mayl ayuu ordi karaa. waana xayawaan ka mid ah xayawaanada ugu baalasha weyn kuwa haada. culayskiisuna uu xoogan yahay, iyadoo ay jirto in xayawaankan uu noolaan karo cunno la'aan in ka badan 1 isbuuc. waana xayawaanka haysta kaalinta saddexaad. waxaadna ka dareemi kartaa sawiradiisa inuu yahay xayawaan mug weyn
sidaas oo ay taana xayawaankan wuxuu haystaa kaalinta saddexaad oo waa xayawaanka ugu xawaaraha badan kaalinta saddexaad dunida oo idil. xayawaanka afaraad ee ugu xawaaraha dheer dunida oo idil iyo waxa uu noqday isla shimbiraha mid ka mida, waana xayawaanka magaciisa loo yaqaano spur winged goose ama boolahaadoy. waxaa loo yaqaanaa xayawaankan boolahaadoy, sidaas oo ay taana waa xayawaan ka mid a xayawaanada ugu xawaaraha dheer. isbiidkiisu ama xawaarihiisu waxa uu gaarayaa 142 kiiloomitir saacaddii ama 88 mayl haddii uusan wax ugaarsanayna waa iska xawaara meel dhexe ah. 30 ilaa 40 mayl saacaddii ayuu jari karaa. xayawaankan waa xayawaan ka mid ah xayawaanada ugu xawaaraha dheer dunida oo idil, kaalinta afraad ayuuna kasoo galay daawadayaal. waana xayawaanka ka mida kuwa shimbiraha ama la isku yiraahdo birds. markan waxaan diiradda saari doonaa xayawaanka shanaad. kaalinta shanaad waxaa soo galay markan xayawaan ka mid a xayawaanada ku nool beriga, waana xayawaanka loo yaqaano ilille af Soomaali ahaan ama jiifto, waxaana la yiraahdaa cheetah. waa xayawaankan aad u jeedaan daawadayaal, waa xayawaanka ugu orodka badan kuwa duurka ku nool ama beriga ee adimoolaha ah. sidaas oo ay taana wuxuu ka tirsan yahay cat families ama ururka bisadaha ayuu ka tirsan yahay, waana nooca bisadaha waaweyn. bisadaha yaryarka ee magaalada ku taqaanaan waxataa ay ka mid yihiin cats. sidaas oo ay taana xayawaankan waa xayawaanka ugu orodka badan ee ku nool duurka, waxaana loo yaqaanaa cheetah. waana xayawaan aad u dheereeya, waxa uuna jari karaa saacaddii 113 kiiloomitir ama 70 mayl ayuu jari karaa, taasoo ka badan 3 jeer jibaar ayuu wuxuu ka orod badan yahay qof bini aadam ah. qofka bini aadamku wuxuu ordi karaa saacaddii 36 kiiloomitir ama 22 mayl. cheetah xayawaankan loo yaqaano ama ilille waa xayawaan aad ugu xirfad dheer xagga orodka iyo ugaarsiga, waana xayawaan aan kasoo samayn doono muuqaal gaar ah haddii aan la yiraahdo. wuxuuna kasoo galay xayawaanaadka dunida oo idil ugu orodka badan kaalinta shanaad. daawadayaal ha isku qaldin cheetah iyo shabeel iyo haramcad, isma lahan. dadku waxay u maleeyaan haramcadka iyo shabeelka iyo jiiftada ama ilillaha xayawaanka loo yaqaano ee aan hadda halkan uga hadlayno inay isku mid yihiin. xayawaankan shabeel ma ahan, waxaa la yiraahdaa cheetah. dhibco yaryar oo madow ayuu leeyahay, xagga madaxana uu u yaryahay, waana xayawaanka ugu dheereeya dhammaan xayawaanada duurjoogta ah, waxa uuna ka tirsan yahay ururka bisadaha. xayawaanka soo galaya kaalinta lixaad wuxuu noqonayaa daawadayaal xayawaan ka mida kuwa badda ku nool, waxaana loo yaqaanaa sailfish. waana xayawaankan idiin muuqda xagga hore mudaca dheer ku leh, waana xayawaan aad u halis badan oo quusaa ah, xawaarihiisuna uu aad u dheereeyo, waana midka ugu dheereeya ee ku nool biyaha ama badda. xayawaankan magaciisa waxaa la yiraahdaa sailfish, waxa uuna jari karaa 110 kiiloomitir saacaddii ama 68 mayl ayuu jari karaa. waana xayawaan ka mid a xayawaanada ku nool badda kuwa ugu halista badan daawadayaal. xayawaanka kaalinta toddobaad soo galay waxa uu noqonayaa xayawaan ku nool xagga duurka, waxaana la yiraahdaa Borogon antelope ama baciid geesa yare. xayawaankan loo yaqaano baciid geesa yare waa xayawaan ka mid a xayawaanada ugu orodka dheer xagga kuwa ku nool duurjoogta. kaalinta toddobaad ayuu kasoo galay xayawaanada dunida oo idil ugu orod dheer, waana xayawaanka labaad ee xagga kuwa duurka ku nool ugu orod dheer. xawaare ahaanna waxa uu jari karaa 98 kiiloomitir ayuu jari karaa, 60 mayl ayayna u dhigamantaa, kaasoo ah xayawaan aad u dheereeya inkastoo uusan wax ugaarsan oo asaga la ugaarsado. baciid yare waxaan leenahay nasiib wanaagsan, cagahaaga ku baxsa ayaan leenahay daawadayaal. kaalinta sideedaad waxaa soo galay xayawaanaadka dunida oo idil ugu orodka dheer, xayawaan ka mid a xayawaanada badda ku nool, waxaana loo yaqaanaa marlin ama mudacle. daawada xayawaankan waa xayawaan aad u dheereeya, waxa uuna jari karaa badda isagoo ku dabaalanaya 80 kiiloomitir saacaddii oo u dhigantaa 50 mayl inuu jari karo saacaddii. waana xayawaan xagga xawaaraha ku garaaci kara xayawaankii hore aan usoo sheegnay amaba ka daba dhow sailfishkii aan hore usoo sheegnay. waana xayawaan halis badan, waa midkan aad u jeedaan ee dhexda u dhuuban, afka horena mudaca ku leh,
badda haddii uu noolo ku helana beerka ayuu kala baxayaa daawada. waa xayawaan halistiisu ay badan tahay. kaalinta 8aad ayuu soo fariistay xayawaanada ugu xawaaraha dheer dunida oo idil, waana mid ka mid a kuwa badda ku nool. xayawaankaasna magaciisa waxaa loo yaqaanaa marlin ama mudacle. kaalinta 9aad waxaa soo galay daawada xayawaanada dunida oo idil ugu orodka dheer. xayawaan ku nool duurka waxaana loo yaqaanaa waa blue wild beast, waana xayawaankan idiin muuqda. waa lo dibadeed ama lo kinsida ku nool duurka, waana xayawaan aad u dheereeya. waxa uuna ordi karaa 80 kilomitir saacadii oo u dhiganta 50 mayl in ku dhow ayuu ordi karaa. waana xayawaan markii loo fiiriyo kuwa duurjoogta ah aad u dheereeya, inkastoo uusan ahayn xayawaan wax ugaarsado oo asaga la ugaarsado. waxaan leenahay nasiib wacan adna, cagahaaga ku fako lo dibadeed duurjoogow, allah kuu gargaaro. xayawaanka ugu dambeeya kaalinta 10aad soo gala xayawaanada ugu orodka dheer waxa uu noqonayaa daawada xayawaankan idiin muuqda, waxaana la yiraahdaa brown hair ama bakayla weyne. pani ayay u yaqaanaan dadka reer galbeedka ah. xayawaankan waa xayawaan aad u dheereeya, waxa uuna soo galay kaalinta 10aad xayawaanada dunida oo idil ugu orodka dheer. marka uu ordayana maahan mid toos u orda ee waa xayawaan leexleexda, taasoo keenayda in badan markii la ugaarsanayo kuwa ugaarsanayo inuu uga fakado kaarto iyo leexleexasho asoo dhinacyada marba u jaraya. xayawaankan wuxuu jari karaa saacadii 77 kilomitir oo u dhiganta 48 mayl. waxa uuna xagga xawaaraha kala mid yahay predator red fox xayawaanka loo yaqaano, waana xayawaanka ugu orodka dheer xayawaanada ku nool duurka. waxa uuna ka soo galay kaalinta 10aad xayawaanada dunida oo idil ugu orod dheer daawadayaal. waxaan filayaa inuu idin xiiso geliyay barnaamijkan xayawaanaadka. haddii aad ka heshay like saar muuqaalka, fadlan subscribe saar channelka.